nabiguna muxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam 40 salaadood ninka takbiirada soo gaadha 40 maalmood baan leeyahay 40 maalmood ninka takbiirada soo gaadha shahaada baraa'a baa la siinaya inaanu ahlu naarka ku biiraynin xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam 40 yowman ninka takbiiratul ixraam ka qayb gala waa dadka helaya buu nabigu tilmaamaya baraa'a min annaar baraa'a min annifaaq ولا بشهاده إذن وقف قلبي يسوع مساجد كحرين وحكلوا نبي وقطر لبنن وإلهي درتي سجعل وحكروا كن حيانه جري لا هنتي ولا قبيل ولا أبترسية ولا وحكروا سكانة مجرو وحي سكانة وقفك كجعل يهيون إلهي درتي ينقف جدك ونكسر مريا ورجلان تحابا في الله إلهي درتي بيسو جعلاده اجتمع عليه وتفرقا عليه تاسو بيسو كان تاكو كلا تقانا هو سنة آخره ماشى في عمله دراعي إنه خير وصع النوا كان كحية مركا لو كانوا نبي سي شيء أو كم دياين وحبحين بدن ومدك تيسو حي بحساب حديث أنا يوغي أو كم دياهي نين إلهي حصي كليجي وإلميي ويريه dadka inta habeenkii istaaga kaligood cibaada istaa oo yaa wayri walaga yaaba jamac markuu joogo imaam cod fiican ku tukinaya inaad iska yara khushuucdo ama ilmaysid laakiin inaad kaliga gurigaaga inta istaagto warajul ayuu nabigu tilmaamaya ذكر الله خاليا إلهي حسين سيكو كليا عدل جوجل ففاضت عيناه إنه سويه وحكروها دوا كمدة ضدك مالت قيامة بدبادة النوع عسيه لي رجل طلبته أو دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها نبقى إن أي ويا لي كباري مركه روانين رجولة دريمي مركه لبادنا nolosha caadiga inta badan ragga hunguri badan oo dhigta raadiya tani waa cagsiga nin isagii la soo doontay rajul ay gabadhi hungurayso u yeedhay gabadhu gabadh caadiya maaha wadaatu mansabin wa jamaal waa gabadh quruxna leh xasabna leh ama manzila rafiica status leh social status كذا والطبقة قبل أبر خلاصك الطبقة العليا كترسل إذا قبل أنا مقعية ماموس أبر خلاص كذا كترسل تقول المصيرة هنتهي سترى وبضت وقبل مقعية ماموس بله وروحنا للسيء ووحي قفكو قبل كدوني لهاي أردن أيوم مغطى لكن كل جوابي النبي عليه الصلاة والسلام إني أخاف الله قبل إلهي ما كعب صريعي إلهي درتي وقتقي داد حماها إلهي درتي وقتقطه وحاول نبقى تلماما يا مالتا قيامة دادكو كديتكو هايستو انت كديتك كبت بادينة تكو بيريسو انت عرش الرحمن كهرسانة سينة تكو بيريسو وحكى له القرآن كينو شيء فضيلة صار ضدك هلي نبي كمده يعني يدو براكتيكالا مركن يدو ثيوري يلا شيء لكن يدو براكتيكالا أي إلهي قصة هذا القرآن كينو سؤالوري نبي يوسف هو القرح بدنها لكن سينو نقانو لا طوري ولا الذي قد كردين دبتنا ولا صعتيها شيء يبستي بقر كلجي يبي يقريسي امرأة العزيز لوجي نبي يوسف مركا قري بكون نولي نكا ماشى معاملة قريسي قبل قبي وعلماء التفسير إن هذا قبل قروح بضبيه سلاخة أي شيء وقعة وأي قروح قتل المامان أي النبي يوسف هم قريسي نبي يوسف نو كان أوصل
hunguri qura maaha waxay isku dayday inay dalabto weliba waxay tijaabisay meel uu ku qanci karo inuu ku badbaadayo inay geyso waqallaqat alabwaaba baa ilaahay albaabadoo dhan way xidhxidhay waraawadatu alatii huwa fii baytiha raawadatu waa doondoontay baa la yidhi almuraawada sika waa xodxodatay si kastoo ay u heli lahayd waxaa kaloo la sheegay waqallaqat alabwaab albaabadana way xidhay lama odhan qallaqat waa xidhxidhay intay adkayn karaysay oo meeluu amni dareemi karayo ayay hagaajisatay kadib baa waxay ku tidhi hayta lak soo dhow adaan diyaar ku ahay bay leedahay inta badan way adagtay gabadhu xataa hadday xumaa doonayso inuu iyada ka soo baxo nolosha caadiga ee la yaqaano gabadha xishoodunbaa ku jira inta badan raggaa hunguri badan oo waxa kani ka yimaada laakiin tani waxay tilmaamaysaa qisadii oo cagsiya qofka hadlaya ee wax raadcaynaya ee wax doonaya oo gabadha lafteedii markaasuu diiday gabadh qurux iyo mansab iyo jamaal iyo guri fiican iyo meel hagaagsan leh weliba waa iyadaa sayid u ah waa addoonkeedii dhanka kale markaad eegtana waa qariib inta badan qariibkuma xishoodo meel aan lagaa garanayn markaad tagto waxaad soconaysaa dee malaa waad fasaxanta laakiin aabba iyo adeera iyo reeruu meelahay joogaan waad sira dhudhuba yaad ceeboobin baad isleedahay cidlada laakiin lama ceeboobo saxinkaa maaha ama meel aan cidibo kaa garanayn markaad joogto lama ceeboobo nebiyullaahi muusa nebiyullaahi yuusuf tolkii lama joogo abihiyo reerahoodii waa laga keenay meelaa cidina ka garanayna waa addoon yar ka yahay buu joogaa meeluu addoon ka yahay waan cidi garanayna buu jooga waa dhallinyaro qofku markuu dhallinyarada yahay iyo xooggii soo dhami jooga waa ma guursan reer ma leh oo ninku hadduu reer leeyahay de waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo wuu dhowrsanaanaya reer buu haystaa reer ma leh idan waxay yidhaahdaan meesha tan waxaa yaalla dawaacu zina kullaha wixii qof ugu yeedhi lahaa inuu zina ku dhaco dhammaanteed waa nin waa dhallinyaro waa addoon oo magaca ilaashan maayo markaa nolosha caadigaa loo eego gabadhu iyo waa qurux badantay mansab bay leeday iyaduu sayid u ah guri cidlaa bay joogtaa iyadaa u yeedhaysa xawaalay ibnulqayim ilaa 15 mas'alo tiriyaayo uu leeyahay waa dawaacu zina baa qisadata ku jira laakiin muxuu ku jawaabay qaala macaada allahi innahu rabbi axsana mathwaaya innahu laa yuflixu الظaalimuun muxuu ku jawaabay qaala macaada allah ilaahay baan ka magan galay buu leeyahay waxaad sheegayso ilaahay qofka mu'minka ahi yatacawad qofka mu'minka waxaa caado u ah inaanu xooggiisa qura ku kalsoonaanine rabbigii inuu magansado wax kasta inuu rabbigii magansado iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaa wadaanu kaa kaalmo dalbayna acuudu billahi min ashayطaani الrajiim atacawud xumoo dhan wuxuu leeyahy macaada allah ilaahay buu magan gelaya waxaanu tilmaamaya innahu rabbii axsana mathwaaya innahu rabbii damiirka inaad alle u celiso oo ah ilaahay waa i nimceeyo god buu iga soo saarayo waa dhibtii rabbiga iga soo saaray ee nicmadana siiyey macaasidiisa ugu abaalgudi maayo yani sideedaba hadduu qof wax ku siiyo qofkaa waad jeclaanaysaa waa dhaqanka aadanaha si qaabka ilaahay waa hadduu qof wax ku siiyo waad jeclaanaysaa qofku markaa hadduu gallad iyo lib kugu leeyahay haddii aanad waxba tari karin calal aqal agtaada lagu xuman maayo ka warran qof hadduu wax ku siiyo oo wixii uu ku siiyey aad u adeegsato saad isaga u dhibi lahayd kaa dadku waxay yidhahdaan waa maxay waa la'iim oo qof xun qof aad wax siinayso oo haddana wixii aad siinaysay ku talagalay inuu adiga kugu dhibo
dhaqan xumada aynu inta badan ku dhaqannay ilaahay kula dhaqannaa waa nooca ilaahay baa ina nimceeyey caafimaad ina siiyey waxa kalena siiyey awadan leh wax walba leh wixii uu inagu nimceeyey buu wuxuu yidhi bes waad mahadsantahay uu inagu dhaha cibaadadu waa ilaahay aynu leenahay waad mahadsantahay ilaahay aynu u mahadnaqayno halkaad ka mahadnaqi lahayd ayaad wixii uu nimco ku siiyey isaga macsidiisa ku adeegsatay saad isaga u caasii lahayd ayaad ku adeegsatay oo waxaad u faalo nabiyullaahi yuusuf markaa wuxuu leeyahay macaada allahi innahu rabbii axsana mahwaaya innahu laa yuflixu aalimiin ilaahay baan magan galay rabbigay meesha way wanaajiyeen ظالمكنا ما الليبان مفسرين تفسير لبعض بيسارار وحيلي وحاو اسنا حرمين يا إلى لنا يا نين كان أبالك كله ويعني كلمة كسوي بسدي وحكو يري ويلكا إلى لي بكو يري سورة إلهي كقول ربي أكرمي مثواه ماشى دجيني سيا وحصل كرامة بكو يري مركها أضيقا بريقا كياني oo kala dardaarmay reerkiiyo gabadha in ninka kan si fiican loola dhaqmo idan wuxuu leeyahay nabi yuusuf abaallaawe ma yihi ninkii sidaa ii galay inaan haweenkiisa u weydaarto in xaaskiisa u weydaartaa innahu rabbii buu leeyahay innahu rabbii waa kii ii barbaariyey wa axsana mathwaaya akrimii mathwaahu waatii uu yidhiye wa axsana mathwaaya buu leeyahay degaankaygana fiicnaysiiyey مرنبا ظلمي ما يقولي إنه لا يفلح الظالمون إذا النبي الله يوسف وحي إلهي تصالى قرآن كوبك تصالى يا شواوين النبي يوسف الله ينوغ الصوصي كم يتهي عفضة ولما عفة اللسان هي عفة الفرج لبدا النبي يوسف على قصة نغلنا ولا الذي سيوحي له السمية يجري توبوها إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل إلهي وحده فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له حتى إنه كويل هذا وردك توقع وكعشان عفة اللسان عرب يسوع دوري هل كان فرجك يسوع دوري مركا أركتي إن أنا أقولين أيوة حيسكت ضيدا إنك كفصته إنك حركته أركو هيت لك سوداء في مركان حب مريا waxay isku dayday inay xoog u qabato xal kale markaa muu hayo wuu cararay cagtu miciin biday inuu ordo oo baxsado isku day isagoo ordaya inay eryeyso oo marada dhabarka ay dilaacisay ayay odaygii guriga lahaa ku kulmeen albaabka markay albaabka ku kulmeen arrintiiba way rogto waxay tidhi maa jazaau man araada biahlik suu'an ilaa an yusjana wa cadaabun aliim waa maxay abaalmarka bay tidhi ninkan reerkaaga xumaha la doonay in la xidho iyadoo boqorka waddanku ama madaxweynaha waddanku haweenaydiisa lagu yidhaahdo ama waad la cayaaraysaa ama waa lagu xidhayaa hadduu boqorku xidhana si aad uga soo baxaysa cidi garan mayso haddaad boqor uu xabsi kugu rido si aad uga soo bixi doonto iyana wax la garanaya maaha halkaa markay joogto nebi yuusuf rabbi buu ku noqday ilaahay buu baryaya muxuu ilaahay weydiisanayaa rabbi السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يدعو فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم بيته ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن هدي وحان رباه السمين ويا بيلا دوال لحدي كو اللي دلينا وكم النقل هدي له هذا حبسي إياك لا دورو هذا ما هذا مرك دولكودا مريا اسكده halkan waxay joogtaa xabsi iyo qoyska boqortooyada inaad la tumataad kala dooranaysa nabi yuusuf markaana xabsigu doortay inaan rabbi caasiyo ayaa wax walba ka xun buu leeyahay saa daraaddeed wuxuu leeyahay rabbi السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إلهو xabsiga ayaa agtayda lagaga kalgacal badaya waxay igu yeedhayaan inaan xabsi galo ayaa ka roon buu leeyahay
إلهينا سبحانه وتعالى وحط المام يا مرك ولي بوحده وإلا تصرف عني كيدهن أسب إليهن وأكون من الجاهلين إلى أو هداند مكري قود يا خيامة قود يا نجرت وده هداند أضوي يدافنين وإلك ده يقول يا آخر هداي دعوة سنة وحبقرتنا كبيرة يا جاهلة قف كستو إلهي عاصية جاهلة جهله معلومات كماها علمه معلومات ماذا حاجة كتيرة ماها علمه وارد أورسان وإنت أتكون قنطع علمية إنت ربي كلوية هي يا محارمتي سكت كقاب سنة يسوع إلهي سبحانه وتعالى وحني معك السيانة وأبا الكذينات مع سيدي سكو سميس سادر هذا النبي يوسف عليه له حبسك أيان نام وحي ويريان أدي أنا ضدوي دورنا واتشبيا إلهي وحلي فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إلهي تعدي مكاقبل تعدي مركو لقى أقبل محل له سبي حبس قال لك إذا تعدى لقى أقبل يوم حي حماها هي حبسك حماها مركا كان حبسك يعني واحد وحماها سا إلهي سودا فيه دبتنا حبس لك حبسك إلهي سيدا فيه يوم حلقة دقيقة مضح الله وكان نقضي وزير كواتك كتليه لو مركي دبي قاعدي ودور سوريد ودور سنة هذا طريقة كانتي وفرتي دبا أيها الأحبة نبينا عليه الصلاة والسلام في نوت المامي من يضمن لي بين لحيي وما بين الرجلين يا لبدي سدان انت ودا حيسه يضمانه قاضيه انه يلاليو يا لبدي سادين انت ودا حيسه وعرب يفرجك نبي محمد بن حلي كما ضمانه قاضيه انه عرب كيس يلالينيو وانو حما كغا دواقينين فرجيس يلالينيو وانو حرام ku doonanaynin haday ضمانada inagu la nimaado nabi maxamed wuxuu leeyahay adman lahu aljanna أن الجنة أيام ضمانات قاضية حديث البخاري هذا إذا قصاص ما يصير وبلغ هكا صوب بحضان أنه حندي بلغ قاضي ابن نبي عليه الصلاة والسلام من الجنة اللسان إذا دور سونده وعبادة كاهبين ودن تاجن وتجاري كرتا هذا عرب كاجي يفرج كاجا قوة دورك منه